waxaan soo dhaweynaynaa Rosemary DiCarlo oo ka timid xafiiska qaramada midoobay oo la shaqeysa xogayaha guud ahna qofka arrimaha Soomaaliya u qaabilsan ama xafiiskooda siyaasadda guud haysta. waa soo dhaweynaynaa waxay noo timid aniga iyo wasiirada madaxweynaha waxaan yeelanay wada hadallo aad u macno weyn oo qiimo badan. waxaan ku heshiinay in UN-ku ay sii xoojiyaan dadaaladii ay wadeen si Soomaaliya ay u gaarto meesha ay higsanayso. waxaan uga mahad celinay shaqada badan ee sanadaha badan UN-ku ama qaramada midoobay ay dadka Soomaaliyeed la garab taagnaayeen dhinac walba. waana rajaynaynaa in ay sii xoogaysan doonto. waxaan ku heshiinay inay nagala shaqeeyaan dawladda Soomaaliyeed hadafyadeeda waaweyn oo ah in dhaqaalaha la kobciyo, in musuqmaasuqa lala dagaalamo, in deynta la ka cafiyo, in siyaasadda loo dhan yahay laga shaqeeyo oo la dhammaystiro waxa noo dhiman, in dadka Soomaaliyeed lagu caawiyo sidii ay waxbarasho iyo caafimaad u heli lahaayeen iyo sidii arrimaha amniga loo dardargeli lahaa. waxaa kaloo ku heshiinay in ajendayaasha looga shaqeynayo dalka Soomaaliya ay dadka Soomaaliyeed iyagu madax ka yihiin adduunyada oo ay uga horeyso qaramada midoobay ay nagu caawin doonaan. waxaan ku heshiinay inaan sii xoojino wada shaqeynta aan leenahay oo labada xafiiskooda iyo dawladda Soomaaliya ay aad wada shaqeyn doonaan. waxaa kaloo isla fahanay wax walba oo mugdi ku jiray. sidaas daraadeed waan u mahad celinaynaa waana kugu soo dhaweynaynaa. waa mahadsantahay.